ra'iisul wasaaraha maanta waxaan u soo booqday wada shaqaynteena UN Women iyo dawladda inaan xoojino tan kale waxaan u soo booqday in aan wargeliyo in executive director-kan waa mas'uulkii ugu sareeyay UN Women inay dalka imaanayso ay soo booqanayso waa safarka ugu horeeyay ay Soomaaliya imaan doonto waana guul u soo hoyatay dalkan Soomaaliya sababtoo ah waa qof loo yaqaan inay u halganto arrimaha dumarka iyo gabdhaha oo runtina aad loo yaqaan tan kale oo maanta aan ka hadlayno waxaan waaysan ka dhawaajiyay sidii aan isla shaqayn lahayn oo loo xoojin lahay siiba codka dumarka iyo gabdhaha loo xoogeyn lahay inay kaalinta ay siyaasadda ka qaataan loo xoojin lahay muuqaalkoodana la soo badiyo maadaama ay hadda soo socdaan doorashooyinkii iyo hataa district council formationka inay ka soo qayb galaan oo dhinacaas lagu xoojiyo marka runtii aadan ugu faraxsanahay sida sharafta leh oo maanta ra'iisul wasaaraha nagu soo dhaweeyay oo nagu dhiirigeliyay shaqada aan UN Women u hayno oo naga codsaday inaan sii xoojino oo xawaarahana aan sii badino dawladdan kaalinta oo haweenka iyo dumarka ay ka ciyaaraan waa mid oo runtii horumar fiican gaarsan sidaad ula socotaan the National Development Plan-ka gadaal waa tii looga soo geliyay pillar 9 oo dumarka iyo xuquuqul insaanka ku saabsan taasna waxay muujinaysaa runtii taakulaynta ay dawladda u hayso dumarka iyo gabdhaha waxaan rajaynaynaa taas iyo in ka badan loo qabto oo maaragtay shaqadaas aan si wada jira aan uga shaqeyno